kiisa madaxweynaha ayaa sheegay in shacabka looga fadhiyo inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhan ah kooxda al-shabaab isagoo sheegay inay jiraan kooxo ka tirsan al-shabaab ee loo soo diray deegaanada nabadoon sida uu hadalku dhigay wuxuuna ugu baaqay shacabka inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka dalkii Soomaaliya waxa hadda yimid ciidamo xoojina la doonayo dalkii in laga xoreeyo nimanka jahwareerka diin laawayaasha al-shabaab la baxay iyo argagixisada caalamiga ay salka ku hayaanba arrintaas markii loo qalab qaatay waxaa jira firxad tiro badan oo aan ogahay inay soo aadeen gobolada nabdoon inay ku dhuntaan bay arrintaas iyada ayay go'aansadeen waxay kaloo go'aansadeen si ay dadka u dhex galaan dadka deegaan walba dadka ka soo jeeda dadku kuwii ku midabka ahaa ama dhalasho ugu xigay in lagu dhex daadiyo oo iyaga la geeyo oo la qaraabaysto oo qaraabaynimo guriga loogu xareeyo oo jeebka loo gashado arrintaasi reer galmudug waxaa la rabaa waxgaradkiisa bulshada qaybaha kala duwan shabaab annaga shaqo iskuma lihi shabaab waxaa naga dhexeeya ma garanaysaa xarig waxaa naga dhexeeya in la qabto waxaa naga dhexeeya in sharciga la horgeeyo waxaa naga dhexeeya in dadka yaga dhexdiisa laga takooro meeshii lagu arko in laga takooro haddaan bulshadu shabaabku walaal ma yaqaan qaraabo ma yaqaan aabba ma yaqaan hooyo ma yaqaan hooyadiisu guriga intuu keeno oo dalka dhinac walba ka imaanaya waxa weeye firxadkoodii qaarna waad aragteen kuwana magaaladay soo gelayaan kuwana waa imaan doonaan arrintaas waxaan rabnaa munaasabadan anoo ka faa'iidaysanaya in dhinac looga soo wada jeesto arrinta ayada qibdid ayaa dhinaca kale sheegay in heer gabagaba uu mariyo shirka la doonayo in maamul goboleed mideeya gobolada dhexe loo sameeyo isagoo xusay in maalmaha soo socda arrintaasi la qaban doono ugu horeysay shirkii ahaa gobolada dhexe oo hadda maraya meel gabagaba insha Allah ta'ala aan filayo saacadaha soo socdo in meeshii iyo goobtiiba iyo waqtigiiba la sheegi doono hawlaha aan u joognay ka mid ahayd